bismillaah weli ma maqashay in ugu yaraan 5 mar la isku dayay in lagala baxo nabiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa laakiin lagu guuldareystay? Ma maqashay in ninka ugu taajirsan ee dunida soo mara uu ahaa boqor ka tali jiray waddanka Maali, magaciisana la oran jiray Mansa Musa ama Boqor Musa? Weli ma maqashay in si ka duwan sida dadka badankiis aaminsan yihiin in cadadda aayadaha qur-aanka aysan ahayn 6666 laakiin ay jiraan siyaabo kala duwan oo loo tiriyo aayadaha qur-aanka, iyadoo la sheegay tirooyin kala duwan sida 6210, 6214, 6217, 6226 ilaa 6236. Ma maqashay in magaca Mozambique uu ka yimid nin Carab ahaa oo maalqabeen ahaa oo ka tali jiray waddankaas qaybo ka mid ah inta uusan iman gumaystuhu? Ninkaasna waxaa la oran jiray Musa bin Bek. Ma maqashay in jaamacaddii ugu horreysay dunida ee laga aasaasay waddanka Morocco ayna aasaastay gabar muslimad ah? jaamacaddaasna waxaa loo yaqaanaa jaamacadda alqaraawiniyiin. Ma maqashay in waddanka Gambiya dadka ku nool ay ka yar yihiin kalabar dadka ku nool Muqdisho laakiin ay ku hadlaan ugu yaraan 10 luuqadood? Ma maqashay in Soomaalidu ay yihiin dadka diinta islaamka gaarsiiyey jasiiradaha Maldives iyo Sri Lanka, ayna jirta xilli ay Soomaalidu ka tali jireen qaybo ka mid ah jasiiradda Maldives? Ma maqashay in si ka duwan sida dadka badankood ay aaminsan yihiin magaca Taliban in uusan ahayn af carabi qaldan ee uu yahay af Pashto, luqadda looga hadlo Afghanistan? Ma maqashay in kalandarka lagu xisaabiyo taariikhda miilaadiga ee loo yaqaano Gregorian calendar uu sameeyey nin baadari ahay, magaciisana la oran jiray Bob Gregor 23? Ma maqashay in markii ugu horreysay ee la bilaabay in la adeegsado kalandarka hijriga in ay khilaafadii Cumar ibn Khadaab?